بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaad ardayay maantana waa 10 keeni labaad waan dhiganaynaa oo ihtimaalka sina hore u soo aragnay ihtimaalka wuxuu yahay iyo qaxninkiisa maantana waxaan u gudbaynaa insha Allah 10 keeni labaad maanta waxaan baran doonaa wax la yiraahdo waqdac iyo leeyiska insha Allah inuu ku xigdo oo koobnaan doona inaan dhageysataan barajinaya hadii la hayno natiijooyinka 10 keena aan rabnaa ka gaarno hadii alla wax noqon doonaan waxa la yiraahdo inuu soo saarno waxa la inaynu raadino wax la yiraahdo insha Allah waqdacyada ihtimaalka waqdacyada waxa lagu heli karaa qaacidadiisa natiijooyinka lagu gulgaaray oo loo qabo natiijooyinka suuragalka waxaan ka su'aalahan soo qaadan karnaa haddaynu si fiican u eegno natiijooyinka suuragalka ka ah la dhugaasna haysanaa natiijooyinka la dhugaa suurtagalka ka ah waxay noqon karaan waa 6 fursadood ama 6 natiijo ama midkood in laga helo hal ama labo ama saddex ama afar ama shan ama lix wax kale oo kama suurtagali karaan watan hoose natiijooyinka laga gulgaan wax laga wadaa su'aal ahaan hadii la inoo diray raadi waqdacyada tirooyinka dhamanka ah hadii loo diray tirooyinka dhamanka halka ay ku jira maxay noo noqonayaan dhaban seen hore soo sheegnay oo tiro kasta labo qaybsan karto bila haraa marka dhaban maxaa ku jira waa 1 oo 2 iyo 4 iyo 6 marka maxay noqonayaan waa 3 natiijo waa 3 oo loo qaybiyay inta natiijooyinka laga gulgaaro waa 3 waxaan ka helnay tirooyinka dhamanka aynu ka helnay la dhugaas waa 3 fursadood waa labadaas 4 iyo 6 oo loo qaybiyay natiijooyinka suurtagalka ka ah la dhuga marka aan haysano dhamaantis waxay noo noqonayaan 6 fursadood waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 5 iyo 6 marka waqdac waxaan ku helaynaa natiijooyinka laga gulgaaray oo ah dhamanka marka inta number dhaman meesha ku jirta oo loo qaybiyay natiijooyinka suurtagalka ka ah dhamaantood oo aynu haysano waxay noo noqonayaan 6 natiijo haddaynu sii socono oo sii galno tusaalaheena tusaalaha halkan haddaynu sii socono marka la tuuro furka dhalada kookaha waxa soo baxaya xarash ama madax midkood macnaheedu waxaan lagu ciyaal ku ciyaaraan marka tuurid wuxuu ka rajaynayaa natiijada soo baxaysa inay noqoto midkood ama xarash inuu dhaho ama madax saas labada natiijo jaaniska ama fursad ay ku soo baxayaan labada natiijana waxay noqonayaan laba natiijo isku mid ah ama madax wuxuu ku soo baxaya half kalena wuxuu noqonayaa half kale tusaale laadho ayaa la tuuray waa maxay ihtimaalka lagu heli karo labo tiro kisi ah iyo tiro intaas ka shaqeynayna marka laadhoga la tuuray tusaale laadhuga marka la tuuray munadulaatiga aynu ka filayno ama natiijooyinka suurtagalka ee laadhuga waxay noo noqon karaan munadulaatiga laadhuga waxay noo noqon karaan waa inuu ku noqdo ama 2 3 4 5 6 inta markaynu helno ka suurtagalaya ba marka waxa la inoo diray waqdac aynu ku heli karno 2 marka waqdac waxaynu seen hore soo sheegnay waqdac waxaynu ku helaynaa natiijooyinka laga gulgaaray hadda maxayna haysanaa waa hal imsa labaad meesha ku jira waa hal macni labo hal chance ba ku leeyahay hal fursad munadulaatigeena oo loo qaybiyay inta natiijo oo suurtagalka ka ah la dhugana waxayna soo baxaya waa 6 marka su'aashaasi iyadoo saasina hadii 3 la inoo dir lahaayo kala saas noqon lahayd la 3 waxay ku leedahay hal fursad 3 loo qaybiyay inta natiijo 3 oo hal fursad ku leh oo loo qaybiyay inta natiijo meesha misil kan ku xigay waxa la yiraahdaa tiro kisi ah ba waqdac isbuuc inuu noqonayaa waqdac qaadadeena soo sheegnay waqdac tiro kisi ah imsa tiro kisi meesha inoo yaal kisi waa tiro kasta oo laba u qaybsan karin bila haraa waxa la yiraahdaa kisi hal waa tiro kisi ah laba uma qaybsanto
saddex waa tiro kisi iyaduna laba u qaybsato shanna waa tiro kisi sidaa daraaddeed nambarada kisiga ayo halkaana ku jira waxay noqonayaan waa saddex nambar oo loo qaybiyey natiijooyinka suuragalka ka ah laadhugan dhan waxay noo noqonayaan nin 1 2 3 4 5 6 waa 6 fursadood waynu sii fududayn karnaa haddaynu saddex u qaybinno waa hal haddaynu halka saddex u qaybinno waa labo marka waxay noqonayaan waa half marka waxa qaybinaysidna tirada sareeyaha iyo hooseeyaha waa inuu isku number isku mid ah waa inaad u qaybisid halka saddex u qaybinno waa hal saddex aynu u qaybinay waa labo sadraadeed waxna soo baxay ha waxayna ku xiga dhacana kale maxay noo noqonayaa على يدير ترى دمنا يمسو ترى دمنا ماشي نوك جرا كو لابو صدح وصدح في الصواب صدح نمبر بانكي لنا صدح جالس بيقول لي ترى دمك هاي ماشي نوك جرا لو غبي يمسو النتيجة كسر تقل ماشي تنا يجون وكو لابو صدح أفرشان لح النتيجة باسور تقل كأ ترى هل كانوا يعلم نحن نغني يعني صدح وغيبي وهل صدح وغيبي أنا لا إنه هالك واحد نوصل بحي حاف سؤال شنو كده ميسه وبا تا شاء من دام سؤال إنه يجي منه هالك إنه واحد لأنه هاي ح ترى أوقف سمي كرته صدق إمي سترى أوقف سمي كربا لا دوجي الناس إنه كهلينا صدح كانوا واقع بسنته كانوا واقع صدح واقع بسنته وصح صدح واقع بسنته شانوا واقع بسنته اللي إحنا واقع بسنته مركز ترويك واقع بسمي كره وقد عوض محمد نغنيا وقد ترويك واقع بسمه هنا نغنيا وصدح يلا مركز واحد كله يهين لو فرصات وصدح يه لح والله لو غيبي إما النتيجة ماشي تصور تقلقها ولح فرصات كو لابو صدح أفر شان لح marka lix jaanis bay ku heliyaan laba inuu ku qayb waa hal laba inuu ku qayb waa saddex halkaan waxaan soo baxay hal loo qaybiyay saddex isna noqonay waxay radaa ku laabto waxaan ku yiri laadhu ayaa la tuuray waa maxay ihtimaalka lagu heli karo labo laadhu marka la tuuro muunadulaadkiisu intaas oo natiijo horta inoo yeelnay wuxuu noqonayaa in hal laga helo ama labo ama saddex ama afar ama shan ama lix marka waxaan leenahay labo fursad intee ku leedahay waa hal jaanis ilaa labo hal number ku jira marka waa hal loo qaybiyay 6 waa inta natiijo ka suurtagal ah numberada meesha inoo yaala waqdaca tiro kisiya imso number oo kisiya halka inuu ku jira weelaan waa 1 2 3 iyo ha shantaas saddex kisina waa tiro kasto oo aan laba u qaybsan karin bila ahra yani laba tiro aan u qaybsan karin waxa leenahay waa tiro kisiya dhamana waalidkeeda waa tiro kasto laba u qaybsan karta marka maxay ku yeeshaan saddex fursadood saddex fursadoodna waa hal saddex iyo shan oo loo qaybiyay natiijooyinka suurtagalka aynu haysano isna waxaynu yiri tirooyin dhamaan imisa tiro dhamaan waa meesha ku jira tiro dhamaan waa tiro kasto laba u qaybsan karta waxay noo noqdeen 1 iyo 2 iyo 3 saddex fursadood bay ku yeesheen oo loo qaybiyay natiijooyinka suurtagalka meesha inoo yaalay inuu waxna soo baxay half tan waxaynu yiri tiro u qaybsan karta saddex imisa tiro u qaybsan karta meesha inoo yaala saddex waa saddex iyo 6 laba fursadood bay ku yeesheen laba u qaybi xaqana laba u qaybi waxna soo baxay hal loo qaybiyay saddex tusaalahan inuu ku xiga waxa la galaas ayaa waxa dhigta 18 wiil iyo 12 gabdhood tusaalahan si fiican ila soo galaas baa waxa dhigta wiilasha galaaska dhigta wiilashu waa 18 gabdhuhuna waa 12 marka waxa leeyahay hadduu rabo macallinku inuu galaaska ka kooban horta dadka galaaska dhigta haddaynu isku darno waa 30 arday gabdho iyo wiilal marka la isku daro marka natiijooyin galaaska ka soo gala ama muunadulaatigan wuxuu noqonayaa waa 30 arday halka inoo yaala marka waa maxay ihtimaal macallinku hadduu rabo su'aalaha inuu weydiiyo ardayda waa maxay ihtimaalka uu ku dooran karo ama gabar ama wiil baynu rabnaa marka waxay leenahay waqdaca wiilasha waxaan ku helaynaa waqdaca uu wiil ku dooran karo
يعني احتمال كويل كنا نقول نقولنا أما احتمال كويلشة waxaan ku helaynaa tirada wiilasha galaaska dhigta imise wiil ba galaaska dhigta waa 18 wiil oo loo qaybiyay tirada guud ee galaaska dhigata tirada guud ee galaaska dhigatana waa 30 arday ba galaaskeena dhigata haddaynu sii fududayno waxay noqonayaa ba gabdhaha horeeya laakiin gabdhaha aynu ka hormar ihtimaalka gabdhuhu maxay noo noqonayaan gabdhaha ihtimaalka gabdhaha maxay noo noqonayaan waa tirada gabdhaha ee galaaska dhigta oo ah 12 gabdhood oo loo qaybiyay tirada guud ee galaaska dhigta oo ah 30 arday 30kana waxa ka keenay labada wiilasha iyo gabdhaha aan isku darna galaaska dhigta haddaynu sii fududna laba u qaybi waa 6 halkana laba u qaybi waa 5 iyo 10 ihtimaalka wiilasha waxaynu ku helaynaa ihtimaalka wiilasha waxaynu ku helaynaa wixii inoo leeyahay tirada guud ee wiilasha oo ah 18 tirada wiilasha galaaska dhigta oo loo qaybiyay tirada guud ee galaaska dhigata oo ah 30 arday laba u qaybi waa 9 laba u qaybi waa 5 iyo 10 waxaan niri marka la waxaan leenahay waxaanu helaynaa tirada guud ee galaaska dhigata waa 30 arday markaas ihtimaal gabdhuhu wuxuu noqonayaa tirada gabdhaha loo qaybiyay tirada guud oo ah galaaska dhigata 30 arday laba inuu qaybina waa 6 xagan laba inuu qaybina waa 15 ihtimaalka wiilashana wuxuu noqonayaa tirada wiilasha galaaska dhigata oo ah 18 oo loo qaybiyay tirada guud ee ardayda galaaska inoo dhigata oo ah 30 30 wuxuu ka yahay wiilasha gabdhaha isku darnay laba inuu qaybina waa 9 xagana laba inuu qaybinay waa 5 iyo 10 ihtimaalka gabdhuhu waa wuxuu ku dooran karaa macnihiisu 6 loo qaybiyo 15 ihtimaalka wiilashana wuxuu noqon karaa 9 loo qaybiyay 5 iyo 10 sidaas bay gabdhuhu markasta waxa badan ihtimaalka lagu dooran karo wiil maxaa yeelay tirada wiilashu waxay ka badan yihiin tirada gabdhaha galaaska dhigta layligeena kana waa waxa la tuuray laadhow waa ma ihtimaalka lagu heli karo 5 tiro dhamana 2 iyo tiro u qaybsami karta 2 iyo tiro u qaybsami karta 2 layligaas waa midka koowaad saas baa insha Allah inoo balan layligeena ka soo shaqeysaanin خير 10 كيننا ما أنت أسكوي هاي خير بين درجين يا وأنا ما سنتين